raxiim waxaan magacaygu Cabdullaahi Daawud waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka waxa ku dhaca inta badan dhalinyarada isticmaasha telefoonada iPhone-ka ama Android-ka in log markay ku xirtaan ama button ay ku xiranayaan ama log bay ku xiranayaan haddii markaas dadka waa iska taqaanaa dad qaar waxaa jira ma dhow ayaga fadhiya ay ka dareemaya button-ka noocaad u gelinaysid hadduu qofku ag fadhiyana dee waa ii fur buu ku leeyahay wax yar baan ka wacanaya markaas soo ku arkaya ilaa kama qirinaysid markaad u furtid wuxuu koobiyeynayaa ama hadhow furanayaa button-kaagii ama lambar loggaagii markaad gelisay waa arkaya marka hadda waxaan ku hayaa telefoonkaaga ku xiranaysid WhatsApp-ka, Facebook-ka, telefoonka caadiga waxaad ku xiranaysid kadibna xataa hadduu qofka kula fadhiya arkayo oo fiirsaad leedahay oo arkayo in button-kaaga ama pin-ka uu arkayo uusan furi karayn mobilkaaga ama pin-kaas uusan furi karin pin-kaas waxaa la yidhahdaa pin lock ayaa la yidhahdaa ama pin vault waxaad ku qoraysaa Play Store-kaad ku qoraysaa pin locker ayaa la yidhahdaa halkaasa pin locker ayaa la yidhahdaa halkaasa pin locker aad ku qoraysaa kadib waad soo download garaynaysaa halkaas anigoo igu jira soo download garaynaysaa sidaan kale ayuu usoo furmayaa pin locker kadib halkaan markuu yimaado button-kaagii ama button baad gelinaysaa button-kaas adigu xiran show gmail-kaaga geli confirm garanaysaa markaad confirm garaysid videoyada iyo waxaas oo dhan hadda waxyaalaha xiraysa oo kale waxaa photoska ii xir wax yar baad iska sugaysaa user data access kadib waxaad sameynaysaa delay kadib waxaad ku dhufanaysaa change password markaasaad waxaad ku dhufanaysaa midkaan dhexe aad ku dhufanaysaa 4 number oo aad ku xiranaysid ayaad markaad gashanaysaa tusaale ahaan waxaan gashanayaa 1229 next baad leedahay halkan waxaa kugu sheegayaa qaabka aad u isticmaalaysid next reenter password confirm passwordkaagii baad gashanaysaa 22 tusaale ahaan halka wuxuu ku jiraa godkaan labada waxay ku jiraa halkaan mar labaad ku celi 9 godkaan ku jiraa marka 22 soo okay baad leedahay dhan ayaad leedahay su'aal uu ku weydiinaya hadhow maxaan ku qoraa haddii hadhow uu ku weydiiyo jawaab ahaan baad ku jawaabaysa waxaad leedahay haa ayaad leedahay kadib confirm baad leedahay kadib waxaad samaynaysaa markaas saas kula furtisaan kale usoo muuqanaya waxaad samaynaysaa markaas login kugu xirnaa ayaad ku tijaabinaynaa dhagdhag markaasaa u furay sidaas u isticmaalaysaa waa log aad u